madaxweynaha dowladda Puntland ee Soomaaliyeed Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaa maanta dhul gaaraya 3 kiiloomitir ugu deeqay jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Garowe. Dhulkaas oo lagu talagalay inuu qayb ka ciyaaro la dirirka jahliga iyo kor u qaadista aqoonta garaadka ardayda heerka jaamacadeed. munaasabadu madaxweynaha Puntland dhulkaas ku wareejinaya ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Bariga Afrika, maamulka magaalada Garowe iyo mas'uuliyiin kale. Dr. Faroole oo ka hadlay madasha ayaa tilmaamay dhulka inuu u hibeeyay bahda waxbarashada jeclaysiga jaamacadda Bariga Afrika, waxaana tilmaamay inay ku faraxsan yihiin haddii yihiin madaxda Puntland in kor loo qaado waxbarashada dalka siiba tan sare ee tacliinta. dhulkan waa dhul dawladeed togaan yar oo qoldheer la yiraahdo togaa ka sokeeya weyn wixii dhinacan ka soo xiga ilaa Puntland la asaasay xukuumadda iskale ninkii dhagax dhigay ama wax dhigay gardaru u dhigay waxba kama jiraan waxa weeye dan caama dhul sidiisaba dawladda iskale iyada qoondaysa iyada qaybisa dawladda hoose dawladda dhexe dhulka qaybsiisa markaas dadweynaha u qaybisa dad baan aragnay iska xirxiraysanaya oo cagafya intay qaataan meel iska samaysanaya wax ka jira ma jiraan waa loo soo jeensanaya waan laga baabiinaya meeshaan waxaan ugu dooray jaamacadda inay qaadato waxa weeye magaaladay ku beeganta oo ardadu dadku way iska danyar intay ka soo gudbaan togabay halkaan soo imaan karaan iskuulka tacliin soo aadi karaan marka saasaan u dooray goshaas buurta hadda xagga sawirka u jeesada buurtaas wixii ka soo jeeda oogada dan caam oo kala ka jidha oo meesha laga dhisaayo iyo hawlo kale oo dawladda leedahay xag ammaan darteed loogama bixi karo intaas soo jeeda dibadda loogama bixi karo ilaa intaas inta ka anfacda ayaa jaamacadda la siiyay si halkaas u degto qaybta hore oo hadda la dhisayana waxay noqon doontaa faculty kamida fakultooyinkaas إن شاء الله واحد نقول نقطة فقلتها عاصمات هاي الإسبيتال بقى ميل أدو وكله ودولك كم دولك الدولة دلقة سين دونا أرتا واحد بحيو دول بوقع للسن واحد الله بحيونا تعليم بوقع للسن هي عاصمات إلهي بيسوها في الجي دول وين السيني وحنا باهنا إلى سيدتك وكله إذا نقوله حد يربى مدير لو حبان نوشيك تاني ويحي عضلتي ما دان هوش بلعبته سوى مدو أركته إمش هولا قبل لعباي وأدل وحقالية وحنا لو هبي تعليم إن جهل يدتك الله قصاره وأي وحبرتان سي أيون نقدان مارتي بني آدم قيمة يسن أو أدونك إنتي سكر الله سعون كره دان علم الجيرين حوم الجيران قف كان علم لهين تمدح يمسكه وندرتهم بكجل لحظة موية وحبضان أقوانه وحقوق أفصل لها أما مدة حقوق فائدة لها وكم مغن مركا الحمد لله رب العالمين إلهي بوداس النسيي يدل كابلارن دل كانجرو فائدة كله يبيها كله مركا لو مدون يبيها كله يلا لقى قضاء يلا لقول السياح مركا هل كان وحال السياح جامعة بريق أفريقيا فرع هذا جروه إنه يكدسته دي لها إدمه دخسنا الله بلابه ورغدا بحنت دل كوحب حنيه مايركا عبد العزيز نور علمي ayaa bixin doona dawladda hoose bixin doonta waxa loo baahan yahay biyo mareen weeye xagga xogaa in laga soo turko waan lagu fogaan laakiin xagga waa loo dheerayn karaa goshaasna qurux bay taraysaa waa la saari karaa marka ilaahay hayna ku khayro idinkana dadaalkiina allah ajar idinka siiyo dadkan halkaan joogana haddaan meel walba looga guntano looga soo hormarin dad soo burburay oo wali kharibaad isaga dhex jirto oo balwooyin badan iyo argagixiso iyo belo ku dhex jirto weeye waxay u baahan yihiin in laga saaro dhibaatada ay ku dhex jiraan oo gacan la siiyo u baahan yihiin iyaguna ay gacan geystaan oo ay wax qabtaan hadda waxaan u maleynayaa waa la baraarugsan yahay marka insha Allah taala waxay noqon doontaa meel lagu najaxo oo ummadda oo dhan anfacda idinkan ajir ka heshaan annaguna kulli mas'uuliyaddeedu ku gudanay faatax gudoomiyaha maamulka magaalada Garowe Cabdicasiis Nuur Cilmi Koor oo dhankiisa hadlaya hoos ka xariiqeynay muhiimta sidii loo dhiirigelin lahaa waxbarashada Puntland waxaana kula dardaarmay bahda jaamacadda Bariga Afrika inay sida ugu dhaqsiyaha badani ay u taagaan dhismaha booskan ee dawladda ugu deeqday maanta halkan waxaanu isugu nimid dhul jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe dawladda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed uu ugu hibeeyay dhulkaas oo horeyba ay sharci uga soo baxay in dawladdu ay iska leedahay oo kamid ah dhulka waqooyi ka xiga toga ama qoldheere dhammaantiisba dikratooyin hore ka soo baxay in dawladdu ay iska leedahay
dhulka qayb ka mid ah oo bariga ka jira isbartiibada cusub oo kontaneefaraad ka sokaysa waxaan dadweynaha u sheegaynaa dhulkaas in loo hibeeyey jaamacadda bariga Afrika soo jeedka gosha magaalada ku soo jeeda ilaa laga gaaro mawlaca khayr seexay dhulkaasi waxaa loo hibeeyey jaamacadda bariga Afrika waxaan lagu bilaabi doonaa si dhaqso ah haddii Rabbi idmo sharcigeeda iyo maxaa la yiraahdaa dokumentigeedana waa lagu wareejin doonaa Ilaahay dankiis Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf gudoomiyaha jaamacadda bariga Afrika faraceeda caasimadda ayaa uga mahadceliyay madaxda Puntland siba madaxweyne Faroole sida wanaagsan uu dhulkan ugu deeqay waxa uu ballan qaaday sheekhu in sida ugu dhaqsiyaha badan uga hawlgeli doonaan dhismaha booskan oo fadhigiisu gaaraya 3 kiiloomitir oo la sheegay inuu yahay mid u qalma in jaamacad laga dhiso halkaasi saaka oo bishu ay tahay 18 bishii saddexaad 2013 halkan waxaa la isugu yimid in dawladda Puntland oo hogaaminayo madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud in dawladdu dhul ay u hadiyeyso jaamacadda bariga Afrika faraca Garowe arintaas oo jaamacad ahaan aan ka celinayno mahad aan la soo koobi karin mahad celinta Allah kadib intii af laga oran karo oo mahad ah ayaa waxaan u mahad celinaynaa dawladda Puntland oo hogaaminayo madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo runtii aanu ognahay ama ayba cadahayba mar walba wixii danaha bulshada ah oo mujtamaca u haraya oo anfacaya haday tahay waxbarashada haday tahay caafimaadka haday tahay khadamaadka kale oo bulshada u baahan tahay aad iyo aad inay wax uga qabato dawladdu ay jeceshahay waliba madaxweynuhu si gaar ah runtii uu nagu soo dhaweeyay wax kasto dan caam waxbarashada ay ugu horeyso dhulka dawladda in loo hadiyeynayo ma garanaysa si mashruucaas loo fuliyo marka mar kale ayaan mahad u celinaynaa dawladda iyo madaxweynaha dhulkaana saaka waa gudoonay waana ka gudoonay madaxweynaha iyo dawladda waana u mahad celinaynaa 100% waxaan rabaa kelimada ku xigta inaan siiyo Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaah Xoosh oo kamid ah asaasayaalkii jaamacadda bariga Afrika ugu horeeyay oo asaasay xaruntiisuna ay tahay magaalada Riyaad kana mid ah dadka jaamacadda u gurmada oo dhismayaalkeeda iyo baahideeda had iyo jeer ka fikira wax badan u qabtay si isaguna kelimadii mahad celinta uu soo jeediyo mahad Ilaahay baa iska leh haddana waxaan mahad u celinaynaa dadka mandaqada degan oo dhan Puntland oo madax ka yahay Dr. Cabdiraxmaan oo markaan xalay la kulanay aad noogu soo dhaweeyay fikradana nagu tasjiiciyay sida loo ballaariyo jaamacadda hadda meesha waxaan ku nimid safar gaaban oo rabno inaan u shaqo tagno sida dhulkan loo dhisi lahaa oo loo hirgelin lahaa waxaasna martida nala socota kamid ah Sheekh Jaamac Faarax Gaas oo odayaasha jaamacadda fikradii hore ragil haawi fikradu waxay ka timid dhowr nin oo meel fariisatay oo tashaday marka maantay waxa isleedihiin 2 kiiloomitir iyo 3 kiiloomitir laakiin anaga waxa noo muuqda dhulkaan kulligiis wada noqon doona saradha dheer oo ummadaan u haraya dawladana waa u mahad celinaynaa ra'iiska waa u mahad celinaynaa waxaana la yiri rubba himmatun tarfa'u umma in yar oo qofku ra'yi soo jeediyahay inay wax weyn u qabato ayaa laga yaabaa kulligiina waa mahadsantihiin nimcadan maanta haysana Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa dawladana waa u mahad celinaynaa ra'iiska assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh الدكتور عبد الرحمن الشيخ محمد رئيس ولاية بوتلاند حكومة بوتلاند وكمان نحمده حاكم مدينة قروة عبد العزيز نور علمي كمان ونشكرهم جميعا الحاضرين والمسؤولين اللي حضروا نحمد الدكتور عبد الرحمن غني عن هذه الكلمة حقيقة لمدة الحكم هنا سعيه وإقامته للمشاريع العامة وتعلمون جميعا أن العلم هو الحياة لولا العلم ما كانت الحياة حتى العلماء قالوا السحر اللي اتفقوا عليها
المذاهب الأربعة أنه يقتل ساحر أحسن من الجاهل، لأنه سحرة الفرعون لما عرفوا أن هذا حق كلهم سجدوا. فهذه العاصمة عاصمة حكومة بوتنلاند نتمناها إن شاء الله تعالى هذه الجامعة اليوم أن تكون وليدة. يعني نشكر على الرئيس مرة ثانية أنه أهدى للجامعة في وقته في هذه المدة، لكن نتوقع إن شاء الله أن تأخذ في فرع ثاني أكبر من هذه، لأن اليوم أنا رأيي أنها المكان ضيق عليها كما جربنا الجامعات العالمية. وكما قال الدكتور اللي كان قبلي الأمة بهمتها، الأمة بهمتها، يعني لولا الهمة ما يتقدم الإنسان. فنشكركم. xukuumadda uu hogaaminaya Dr. Faroole ayaa muddooyinkii ugu dambeysay xoogga saartay sidii kor loogu qaadi lahaa arrimaha bulshada sida waxbarashada, iskuulada, jaamacadaha, hagaajinta caafimaadka iyo goobaha. waxaana sidoo kale sanadka xukuumaddu u qorshaysan inay wax badan ka qabato arrimaha deegaanka iyo weliba boqolo la sheegay inay sii dilaacayaan oo gobollada Puntland qaarkood haatan ka jira. Cali Cabdi Casiis, warbaahinta Dunida Online, xafiiska magaalada Garowe.